أنا الدولة أنا درجة وحن دون فلي كدكتونو ضبه لاقي نقطة دول مدورو دول مديدا أنا رجلي دول مديدو دول مدون يسقون سفر آدو سفر ديدان أرقنا سفر آدو سفر ديدا يسقون دول مدورو دول مديدا أنا رجلي دول مديدو دول مدون يسقون Erebor furu, erebor heran aragne. Erebor furu, erebor here isku noqon. Warmaanta heesii qarameed qaadaysaan ma waddankaani kula qabsaday war Sheekh Shariif اعتراaf looma diidine kismaayaa loo diiday Shiiqu safarow, shiiqa diidaan aragne. Shiiqu safarow, shiiqa diid hay isku noqon. warnimaya war ma haysiine madaxweynaha Soomaaliya oo labadii maalmood ee la soo dhaafay qayladu ka daba yeeraysay waxa la guddoonsiiyey bilada sanadlaha ee hogaaminta suuban loo yaqaano konkaraadiya war khudbadu meela ka agriyaysan la haytan asharkuna kiin dhiibni haka baho basahay iyo galad ay bilay haytay war madaxweynuhu warkaaga waxba kama fahmin ay dhigayso biladaas waxa kale oo la guddoonsiiyey Abiy Ahmed iyo Siyaasi Farweeke waxaana loo aqoonsaday saddexda hogaamiye adduunka ugu fiican sanadkan lamada kala xabadiga ma galine madaxweynaha yow farmaajo bilan naga guddoon labadii madaxweyne ee ka horeysay waa la yaabatii shalay dhigeen marka qaylidoodii ma bilada ay keentay markay xilka hayeen cusbu waa qayli jire mugooda ha qaylshaan ama kii qaylin lahayn maxay namudayin warnimada waxa la yiri nin baa hadda koor ceel ku dhacay markaasuu geed allan oo dhinaciisa ku yaal qabsaday markaasuu wuxuu yiri allankow magan marka shalay markay madaxweynayaashii hore hadleen afayeenadii dawladda iyo dadkii hadli jiray qof yira waa la waayay marka dawladda dhani xildhibaan daahir amiin jeesow magan gashay jeesow magan ka dhacday isaguna markaasuu inta ballaarsaday oo idaacad kasta waxay oo yiri xildhibaanna shirayaan nahay waxaan taageeraynaa go'aankii dawladdu ku xayirtay Jubbaland warlanka hebeebsaday gaylada hebeebsaday daahir amiin jeesow jireys mahayna gudoomiyaha xisbiga badbaadada shacabka aadan soronsor usiina ma eray shariifka raali gelinka biyoy oo balajaasnaadka dari oo balajaasnaadka biyoy gefkusin gefi koonfur galbeed baay bakol shireedi ah koobi ki war runtiisada maandhow salaad cali jeelaad ilowday wuxuu yiri madaxweynayaashu sharciga ha raacaano war horta waaba yaabe jidka xirasho mooye miyaan xeelad kala jirin waree dhammaantood dhan waxaad la qaylinaysaan soo dawladoo jidadkii dhulka intay horay u xidhay jidadkii hawadana ku dartay uun maaha waryaadeen Soomaaliland mar hore isku dayday inay cunaqabataysaan imika haddaa idinkiis cunaqabataynaysaan annagu waa ku faraxsannahay war Faysal Cali Walaa wuxuu yiri Soomaaliya waxa u soo baxay siyaad barako dajira no wada heeda Faysal Cali Walaa wuxuu moogay 70 jir Maxamed Siyaad Barra Hargeysa xukuma shalayna Sheekh Maxamed Idriis buu magaalada Hargeysa iyo Soomaaliland oo dhanba ka masaafuriyay war sheekh madaxweyne noqday iyo sheekh caadi isku mid maana labada sheekh kala saar maandheeyo sheekh Shariif hadii hawada laga xiray ma badda iska maaro war ma hayside caleemsaarka Axmed Madow waxa badda u qayb galay waa dani horta kaale kismaayo hadii uu naqabatayn la saaray Axmed Madow mu caleemsaarkiisa cadaada ku qabsado ilaa cadaadu ku soo koray war ma haysaane madaxweyne Sheekh Shariif maanta afku fur war Sheekh Shariif weligii dawlad ma dhaliiline sidee wax u jiraan warnamiya wal mooshidiin dhajiho bilada taabada hunjufa bilaawe warka aadan isaaqaan idin fasire wuxuu idin yiri dheriga kulaylka karka ka keena war hanugu soo xoominina warka naga suga Sheekh Shariif wuxuu yiri farmaajo soo boorsadiisa iyo suud wata ayuu dalka yimid qayrana sidoo kale waxaan tiina kama gelin dalka annaga dhismaha dawladnimada naf iyo maal ah nooga baxay hantiyaan gelinay dad badan oo qaali aan ku weynay mana ogolaanayno in si fudud loo burburiyo halka ay marsiinayaan ha joojiyeen war Sheekh Shariif hadalkiisa maadan dhageysane stop halka aad marsiinaysaan ku joojiya Soomaalina isku timaad ayuu yiri war Sheekh Shariif waa kan la nimankan ayaga suud lay garoon ka soo degeen markay garoon ka soo degayeen muxuu ugu xilin way maanta lama xilin lahayn war Sheekh Shariif ma diin naf imaala giliini usileeye horta maal meelisnin yaaloy naf ma aha iyo bireedjay may ba giliyeen daray soo baawi may meega nafeek ka baabadi war xisbiga hadda sheekay nabadii hore marka waxay dhaheen waxaan ku baaqaynaa shir degdeg ah oo isugu yimaadaan saamilayda siyaasadda si aan xaalad jirto wada tashanno shacabkan waxaan ugu baaqaynaa bay yiraahdeen inay taageeraan dadaalada lagu ilaalinayo dimuqraadiyadda curdunka war ma haysida xasan Sheekh la hadlay wuxuu
wuxuuna yidhi soo wareejinta hawada dhib badan baa laga soo maray maanta markay dawladda gacanta u soo gashay inay sidii hubkii ku dagaalantaa waa qalad war waxaan la yaabanahay oon fahmi waaye saamilayda siyaasaddu yaa waayo yaase saamiga siiyey ma bulshada soomaaliyeed mustaqbalkeeda dhowr qofood ka tashanaysaa war waxaydadii dhigu maraaye 4.5 war xasan sheekh shariif waxaan dhihi lahaa hal sanaa soo horay diyaaraa sheegaysiin guriga inay dhagaar ku gulaysiin ee isdejiye baraadarkay sanad kadib nabad iyo nolol inay tush dhahaan ayaa qawaaf laga qabaa xariifow ma kaa qaadanin camalaa ka weynno waaba la yaabanahay waddankan dadkii iska lahay halkay jiraan ayay adaa ka haray warnimayow saddexdii madaxweyne ee jubbaland laba ka mid ah si jileed isla qabatay waxayna dhaheen sheekh shariif inuu kismaayo yimaado qalad ayay ku ahayd marka in laga celiya kismaayo way ku habbooneed bay yidhaahdeen sababtoo ah waxay dhaheen annagoo saddex madaxweynea ayuu wuxuu doonayay inuu mid u markhaati furo war weligay ma arkin laba madaxweyne oo shir jiraad isla qabanayo hal magaalo isla joogo war anugu xidig iyo seeraar madaxweynenimadoodu inay bug tahay waxaan ku ogaaday shirka jaraa'idu isla qabteen ayagoo laba madaxweyne sheeganaya war aniga xidigaaba iga yaabshay wuxuu yidhi sheekh shariif waxaan u sheegayaa kismaayo wax doorasho ah kama dhicin mugga waa yaabe asiga soo madaxweyne ku noqda haddaan doorasho ka dhicin bari afaaraha hidig gareenka ba war ma haysaane xildhibaan fiqi banaabaxyuu ku baaqay marka waxaan la yaabay dadka meesha ay u turi yihiin war sheekh shariif wuxuu yidhi dawladdu waxay ku mashquulsay inay kismaayo dadka ka celiso ciidankii soomaaliyeed ee shalay la xasuuqana juugka ma aysan dhihin war sidaas ma aana nin weyn jabkiisa waa qarsadaa war dawladdu waa curdun waana yar tahay laba furimoodna hal mar kama wada dagaalami kartee hadda midda maamul goboleedyada ku furana midda shabaab dib uga dhig war ma haysiine madaxweyne farmaajo wuxuu maraykanka uga qayb galay kulan looga hadlay arrimaha diinta oo Trump uu shir gudoomiyey a'uudu billaahi min ashaytaani rajiim ma Trump baa diin hogaamiyey oo aan bara diimilka arimay diimo badan yihiin dadko dhagaha aabudaa ka jiraan anu waxaan la yaabanahay diimaha Trump shir gudoomiyey diinta fircoonka kowka eeba ogo Trump waxa loo yaabaa muku diinta iyo faragasto 29 sano kadib waa markii uu horeysay ee madaxweyne Soomaaliyeed la gudoonsiiyo bilad caalami ah taasoo uu ku mutaysto hogaamintiisa wanaagsan ra'iisul wasaare taada ku xigtay bilad maamul goboleedyada qaramada ma ugu rabtay wariyaha ra'iisul wasaare Khayre hawsha uu ka qabtay galmudug bilad in lagu siiyo waa mudan yahay war biladii koonfur galbeednimo ka daraaso war awowgii la gub kismaayo ra'iisul wasaaraha waa laga taageeray warnimada waxaan idin weydiinayaa ma taqaanii wasiirka raaligelinta iyo saxafinta ee xukuumadda Soomaaliya wiilisheeni aan ahayna afiki araya warnimada waxaan la yaabanahay maxaa inta wax la qaso wasiirka loogu diraa wasiir islaaw waa nabadoonka dawladda bas wadaha dawladda ka wahe war wasiirad Khadiijo waa gabadha madasha war yaa maanta nabadiidna marka war wasiirka amniga imaam nabadoon ugaas islaaw ducaale wuxuu yiri waxa gurigayga igu soo booqday duubka dhaqanka sida imaam maxamed yuusuf ugaas maxamuud cali boqor cabdullaahi geedi nabadoon muxudiin xasan waxaana kulanka igu weeliyey wasiir Ismaan Daalo gudoomiye Umar Filish xildhibaan Carabow xildhibaan Xuseen Caraale dawladnimo ayaana deeqdo yiri war wasiirka waa lagu kalsoonay waa ognahay ragii nabad inoo la ka tirsanaa ma dhameys salaada cali jeele cali geedi sheekh cali wajiis xagee ka baxeen war raggaasi meel ma fadhiyaan shaqada dhinac kale ka wada war Muuse Suudiye Cabdi Xaashi ayaga odayaal ma arrinta safar galiyaan baraadarkay jawaari mar roo baxay war waxa la yiri dawladnimo ma damacba orod iyo dadaal iyo degdeg iyo fudayd iyo jacayl iyo madooqba durduro geel baa ku jabaye damaacuna waa yahaye dalkuna waa lama huraan dadkuna waa lama huraan war cunaqabateen lama huraan waay war waxaan idin odhan lahaa mas-uulnimadu waa xaal baahida markaas oogan maarayn taqaano uga muhandan maqanteeda u masaafo noqoto kulla yidhi halkaas maamul lama odhan ka meermeere kumintid ayaa la yidhi marka dawladdu inay maamulkeeda ku mintidta maxaa loo diidayaa shacabku inuu xorriyadiisa ku mintida maxaa loo diidayaa war lan welba inoo minjayka mintid aynan diidnay maandheeskow mintid khaldana la diidaya wariyaha mucaaradaatiin qayladiinna waa maqlay maanta oo dhan dalka dawladda ka mas-uula amarkay soo saartana waa in la qaataa war ma haysaana meelaha iska qaylinaysaana dawladdii mushaaraadkii Facebook ay bixisay waana la yaabay tan dhacday war horta aniga mushaar la bixiyey waxaan ku ogaaday wariyaal la dhexaad ahaan jiray ayaa hadda dhinac u batay waxaan arkay dul yaroo dhahaya dawladda taageera dadka ka soo horjeedana warkooda hala daayo miyaan odhan loo dhihi
dul yar dulmi kama dhammaado dudunina ciidi kama dhammaado nimayo anuu dunida fool buugga weligay ma gelini adinku idiin furanya saaxiibayaal waxay tuura banaada gabay taageeraa soo tuurankaa qornay fafaniga oo soo gaaray hariifa uquudkan laba nac isku xiji dheeno si loo fahmo oryaaleen annagu dawladda nabad iyo nolol facebookan kala socon jirnay dee facebookina xalay waa looga adkaado dhallinyaradii facebooka ka yeeshatay qanindumis baa tahay in la ruqseeyaan u malaynayaa war adeer wax walba qandaraaskooda dhammaaday niminka war sidaa ma ahee duqbuluqa oo odagii facebook ka odhan jiray qarandumis baad tahay qabyaaladiistaad tahay dowladdii bulad buruufka ku qaaday facebook kama maaranto war dawladdan waxay facebooka ka aragtay si degdeg ay ugu jawaabtaa warna miya weji buugin aftiis afgoy walaayo hegaaska ee leeflahanka gala koray su'aalaha adeerow axmed deerow in yaroo ku idhaahdo cid kastoo is ogaata awooddeediiyo xooggu aad inuu u sarreeyo afar qaadle bilowdo ayar isaga ilowda tii alle aragtaa allaaweyn ninkii aamina abuud leh ummad weliba aayaheeda inay garato iyadaa leh waan ognahay war somalilan aayaheeda ayadaa ka tashanaysa cid ay kala tashanaysana ma laha war kaalay goormuu qowdhan kugu neefsaday ninka duulaya kismaayo doonaya waa inaad xamar martahay war waxaa la yidhi qof kastoo dhibka geysta misna aan ka garaabin gidaarkuu ku tagaa gabayga yeeraayo guuxaan baxaayo iyo gurbaankan awgeedi shaambooba lagu guurihaye waryaaleen gudhuyey annaga markuu sheekh maxamed idriis warkiisa nagu batay waan iska mustaafirinay markaa wixii warkoodu idinku bato miyaa iska mustaafirsaan waryaa warkaada warka dibaddu ahay maxaad warkaan u soo dhex gelinaysaa ayay ku qaadana walaalkaa waaye war wixii waalan ii keenaana dawinaye ii keena wixii waalan digtaana dawladdu ma arag oo ito maaka deersiyo war naga taga balaayayda naga iima wada walan iima waad wala diina iima anayda dawinaye